qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen khilaafka u dhaxeeya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. wariyaha magaalada Muqdisho inooga soo warama Cabdicasiis Cabdullaahi Riyali ayaa warkan inoo soo diray. xildhibaan Cabdifataax Qaasim oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku baaqay in la xalliyo khilaafka ka dhex taagan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si howlaha bulshada loo hayo ay u sii socdaan. waxa uu sheegay in laga wanaagsan yahay khilaaf xilli dowladda Soomaaliya ay ku shaqeyso gargaar dibadda looga baxo annaga hala gaaro xilli aan wax isku qabsano oo waxaan isku qabsanay dalkan waxa waa ma yaala marba hadii aan nahay dad ku nool macuunaad ama kaalmooyin dawadeed ku nool hadaan nahay runtii waxaan isku qabsano inaanay oolin ayay ila tahay laakiin biyad sacbadaada loogu dhargaa wax walbo inaga dhaxeeyo inaan waxa weeyaan ka tanaasulno isugu imaano ugu dambeyn miiska wada hadalka iyo dalkan horumarkiisa ujeedkaas waxa weeyaan aan maadaama hal hadaf aan leenahay qaabka hadafka lagu gaari lahaa ama lagu xaqiijin lahaa lagu kala duwanaan karaa waana dabeecadda bini aadamka uu leeyahay arinta taagan la leeyahay khilaafaadka u dhaxeeya labada gol aqalka sare iyo golaha shacabkana runtii arin iska najraal ah waayaan oo maadaama dastuurkii uusan waxa weeyaan wili ku meel gaar uu yahay inta ku qoranna uu yahay wax mugdi waxa weeyaan ku jiro laakiin haddana waxaan aaminsanahay inta ku qoran bas hadii la dhaqan geliyo intii wax rasmi ah laga helayo in waxa weeyaan wax weyn la gaari karo laakiin mararka qaarkiisa qodobo fasiraad qaadanayo ama si kale loo ta'wiilinayo ayaa mushkilada keenaysa taasina waxaan rajaynayaa inaanay caqabad ku noqon horu socodka dawladnimada inaanay caqabad ku noqon waxaan aaminsanahay xalkeedana cidda gaarayso inay Soomaali tahay oo cid kale waxa weeyaan aan loo raadi doonin annagana waxa weeyaan insha Allah ku rajaweyn waqtiga ugu dhow ama ugu soo dhow waxa weeyaan in lagu xaliyo waayo dadka labada gole hogaamiya waa dad runtii waxa weeyaan aad iyo aad waxa weeyaan garaadkoodu sareeyo Soomaalinimadoodu weyn tahay. xildhibaan Idris Cabdi Daktar oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa tilmaamay in aqalka sare xilligan ay jabeen howshii ay lahaayeen isla markaana ay ku mashquulsan yihiin khilaaf aan micno sameynaynin. waxa uu tilmaamay in gobolladii ay ka soo jeedeen dagaal ay ka jiraan maamul goboleedyadii ay mataleen howshii ay u qaban lahaayeenna xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanku ay dayaceen. aqalka sare aad sheegaysid aqalka sare howl leeyahay oo loo ignaday oo maxaa la dhahay maamul goboleedyadii howlihii maamul goboleedyadu wax ka qaban waayay waxa waaye howlihii waxay soo dhaxgaleen inay maxaa la dhahay fargelin ku sameeyaan howshii ay lahaayeen golaha shacabka baarlamaanka markaan howl ayaga loo dirsaday oo howlahooda ah oo job description-kooda ku qoran ma fulinayaan hadda maamul goboleedyada saa ka warqabtid hadda waxaa ka jiro dagaalo sokeeya ka jiro meelo badan tii ugu dambeysay hadda goofgudud buuray waa ka tacsiyeynaa intii dhimatay Allah u naxariisto waxaa soo weeraray al-shabaab soo weerartay suuqi xoolaha meesha dadkii qarax loo geliyay dad badan ku dhamaaday ilaa 15 qof ka dhimatay hatta kama hadlayaan dhibka oo maamul goboleedyadoodii awalba waxa loo dhisay waxa si qaldan ah loo dhisay awood qaybsi sax ah ma annaga hadaan koonfur galbeed tirada noogu jirto waa dadka koonfur galbeed maxaa la degan waa dadka shacbiyada dadka ugu tiro badan way Soomaaliya hadii 3 meelood waxa waa ayaga way Soomaalida inteeda kale maxaa la hal meelood ay noqon karaan waxa waa dadkaas oo tiradaas leh awoodii qaybsiga waxa la siiyay tirada aad u yar la siiyay awalba waxa waaye sid bursi lagu dhisay xalaal ma ahan waxaan maxaa la hadana hawshoodii waa ka baxeen hawl kale ay faragelinayaan maamul goboleedyada dhibaato ka jirto waxa ka jiro maxaa la amni daraa ka jiro waxa ka jiro xiriirkii ayaga iyo xataa maxaa la dawladda dhexe dadkii sameyn lahaa ayaga waay markaan dadaan hawshooda garanayn oo soo faragelinay hawl annaga aan leenahay waay aniga markaan khilaaf ma ogi laakiin sidoodaba aniga hadda koorna waa ka hadlay dhisidii la dhisay golahaas aqalka sare ah waxa loo dhisay inay maamul goboleedyadoodii iyo dawladda dhexe xiriir ay u noqdaan. labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalka sare iyo golaha shacabka waxa ka dhaxeeya khilaaf keenay in aqalka sare xiriirka uu jaro aqalkii golaha shacabka wali lama xalin waxaana sidoo kale dad fara badan ay la yaaban yihiin sababta ilaahay iminka ay u furmi laayeen kala fadhiyadii labada aqal oo loogu talagalay 10ka bishan inay furmaan sharci ahaan laakiin ilaahay iminka aan la furin inkastoo muddo shaqo ay ku baaqanayso. Cabdicasiis Somali Cable magaalada Muqdisho.